cilad yar ay haysato waxaan rajeynaya ilaa idinkiis in cilada internetka ee hagaagi doonto ee waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada maqalka islaadi maqshaan waa saaxiibkii maxamuud carab oo idin habeen wanaagsan si walba aad daawanaysaan waxaan idin leeyahay waqtiga idin wacnaado cilad yar ay haysata oo internetka waxaan rajeynayaa inay hagaagi doonto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo Axmed Xasan Aadan ku salaamay ogaaskeyga waxaan rabaa inaan ka hadlo odaygii daba casar ahaa iyo Ismaaciil ninka la yiraahdo Ismaaciil Dabare Elay hadda tii dheereed ku dhacday tii dheereed meeshan ogeyn in lagu kala horeeyo aaladan internetka la yiraahdo dadka way ku kala horeeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa cunuga markuu yar yahay naaska hooyadiis uu ku ciyaari karaa laakiin gabalkiisa wuxuu dhacay markii xaniyaha aabihiis uu ku dheelo kuma ciyaari karo Ismaaciil Elay niida daba casar saliida macsarada la marso abti macaan waxa la raafiri abtiyo macaan qabiil hal qabiil oo daarood la yiraahdo in uu dadka dhan caburiyo uu yiraahdo dadka aamusiina lama hadli karo lama sheegi karo wax lama sameyn karo waa la si baabiha waa la siyeela abti Soomaaliya way ka gudubtay maanta Soomaalidii ma aha xilligii Maxamed Siyaad Barre uu joogo dadka la caburi jiray ma aha Dabare arki tusa hal isbuuc Dabare Elayga oo leef soo galay arki tusa haduu ku soo noqdana sida daba casr oo kale waxa rabaa in halkaan aan ka bogaadiyo geesiye raga geesiyiinta ah geesiyiinta waxaan leeyahay waa dadaasheen wala guuleystay daba casr Facebook yaa laga xiray wooy Facebook lagu soo furtay 5 daqiiqo hawada muusan ku jirin waa la cunay Elaygi war maanta dhan Elay ogaadeen Elay sheegtadaan ka arkay maanta dhan hada ku digrisid arab daahir calasow meeqa arab idaa calasow laay kuwa adika weyn oo ka xaniyo weyn arab idaa calasow ku waashay عربي داير على سو ولن كن إمن كن صهرانة إمن كن هذيك عدة أشقيس يقبض إيشك كصاد درتي قبل أن دي تكبح هذا كصاد درتي أنا كنت طلبتهم أنا ما حاجة قاعد كرتاحي أكو قلت أنا تقولي دبرة أبتي هوية ده تجواي وأن كاجا هرينا تكنولوجيا تاني وحنا ولا كاجا هريا قبيل كلام آموسين كرو قبيل كلام آموسين كرو وان كاغا هورينا يوتيوب وان كاغا هورينا فيسبوك دبا عسرو دارود اي اديغا اي مريحانكا كدلتيبا وان كاغا هورينا صاحبك إلاي waxaan leeyahay sida daba casr oo kale saliida macsarada iska marsa abtiyo macaan yaa subaga marsa abtiyo macaan waliga waxaan idin leeyahay waryaada ogaada naaska hooyadiina ku dheeli kartaan qabiilada ka dhalateen لكن خبير كلا حنيس كم ديلي كرتان والله وبالله وتالله لديدي انت سبحان الله هي إلاويك نك إلاويك مختار رو درو الكيسة إذا بعثر أيد كنت عناته مع سكر على شاي موفو أي سومالي ترى هذا مع سكر على شاي موفو إذا الله يا صاحب دبا عسرو أبتي كوي صدري وأنا يعني أذيكنا وأنا إنسان إلا يوقن فيسبوك ولا قاعد وأنا المهاج أتوقسو قاب كل واحد رادي واحد كلا سماء إلا يوق لكن عرب الظاهر على سوق كنت بسنة أبتي مع النبي ويكون كنت أنت أبتي أنت سبحان الله هاي دبا عثر إسماعيل إلا يوق ولا فليسية دبا رو ولا فليسية فيسبوك أركا دبا عثر إسماعيل إلاي وفيسبوك سوق لاي أركا مدة أسبوع يا بيت فديسية وحواي أيضا مركا أمرني مدة أسبوع يا فديسيين إنه سن فيسبوك سوقلين ما يلا ربوا ولا قاعد أدقيه دبا عصر مدة بلع يا أجرني مثل وكسر قري مركو صقري جنود وك علي هي ولا قاعد فيسبوكي أبتي معان وقاعدة ألدان ولا وكله هريا وحصو برتا هوية ده تجواي تيجي أنا كإذا كهرينو فرماجي تيم كيسا إيش وحبنا كم قاري كنا وكأف كاني وحيد الله يا هراء الله سبحانه هراء إذا كدب وسعد لكن دي مد الدين ترى إذا كهرينا أو إذا كبدنا واحد هاي ستان مرة ما ديجنا دم عصر إسماعيل إلهي وإذا كبدنا أنت سؤال الله بدأ ضد وحنا هاي كسرية ما دي
يديني هل أتاك وحيري هل أتاك على الإنسان حين من الدهر أيضا وإنه شيء مركز وحكسه بلا هل أتاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا آيات دي أوجن بس وضد نوع عسى ده عصرنا لما كلام مصبر تعصر داير أويس ياك صبر لما بدأ تقال عصر داير أويس ياك صبر ما أنا برا الهيد عصر داير أويس ياك صبر مركي لما بدأ سنساس عن ليه مقدش أروح أنا أقوم هذا دارود مقدش وحيد بحيان نبض ينول فرماجي يتم كيس يبيش دارود حيرة المقدش فرماجي مركو قبصدي والنبض ينول بين باشكتين مقدش وحد كدكتين عذيك فرماجو عبد الرزاق أب جدود إن اللي بحسن كتاب تعياد حلال أمك عاوض مقدش وحد كدكتين مال قرون مقدشو dadkeeda waa baabi'iseen hal ku dhiga reer muqdisho waa inaad dhaqan gelisaan hadii farmaajo iyo tiimkiisa ay dhaqan geliyeen nabad iyo nolol muqdisho farmaajo maalintuu qabsaday ilaa maanta waxay ka dhigeen naxdin iyo nabar naxdin socota cabsi iyo nabar dhacaayo waxaa la yidhi shalay afar gabdhood oo walaalaha lagu dilay qarax afar gabdhood oo walaalaha oo kala dhiganayay iskuullada SYL iyo iftin ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo إلهنا حريص جنسي قبل أي آيين ما مريحاني آيين ما واحد كلا آيين أفرت قبل ذي الوجود الماشي أمر قدير آيين ذاتك كلا ماشي نقول لا أبقى لي شغالة أبناين إلهي سبحانه وتعالى هو حريصته وحاصلنا وحا مسؤولية ذا إسكالا فرماجي قبيل كيسة والله بالله طلع ما أنت آخر والودنا اللي بعتها جيس الإنسان قبلها لا دلي هبر قدير وحا لك اللي يجري إفراح إيمان لما قبل ذا ولا لما كلام قاعد ولي ما نهل إفراح إيمان دادودو waxay kala ahayd 18 sano jir iyo 15 sano jir waxay kala dhiganayeen dugsiga sare ee SYL iftin ilaahay naxariisto janna ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto laakiin farmaajo hadaa tiri Soomaaliya waa nabad iyo nolol been baad sheegtay Soomaaliya xamar waxa ka dhigtay Puntland waa caadi Jubbaland waa caadi meel walba waa caadi laakiin xamar farmaajo waxa ka dhigtay meel geeri go'an ah muqdisho iftiinayso nalka ka baxay ma aha maanta muqdisho waa ku ciyaartay muqdisho farmaajo waxa gaarsiisay in dadka dhinta aad u tacsiyeen sida Axmed Cabdi Godan oo kala cod inaad soo duubtid farmaajo furuq dil farmaajo muqdisho waxa ka dhigtay nabar ii naxdin adigii Xasan Cali Khayre muqdisho waxaad ka dhigteen nabar ii naxdin muqdisho waad ku ciyaarteen muqdisho waxaad ka dhigteen meel baabaaday maalin ilaahay keenan in qabiilkaaga farmaajo magacaabaysa shan agaasimo guud oo aad magacaawdo waa daarood shan agaasimo guud farmaajo aad magacaawday waa shan agaasimo guud oo daarood ah agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda bini'aadanimada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka kulli daarood weeyaan farmaajo dulmiya ka shaqeynaysa farmaajo cadaalad darra ka shaqeynaysa farmaajo xamarti iftiinaysay iyo muqdishadii nuurka ka baxay goolaf waa ku salaamay iyo muqdishadii nuurka ka baxay waxa ka dhigtay nabar iyo naxdin maanta sidaad u joogtay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi madaxii sirdoonka al-shabaab ayaad u magacaawday ninka ugu sareeyay nabad sugidda Soomaaliya hoog iyo baa ku dil farmaajo yahay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi waa nin daarooda oo sida oo mariixaan oo adig qabiilkaaga ah farmaajo intee u wada Soomaaliya farmaajo Soomaaliya ma waxa yeeshay qabiilka ka dhalatay daarood la yiraahdo arintaas waa qalad waa qadiyad qalad ah madaxweyne farmaajo Soomaaliya dhan waxa ka dhigtay meel daarood ay leeyihiin madaxweyne Soomaaliyeed namatiid ee nabadoon beesha daarooda tahay farmaajo wallahi oo billahi oo tallahi wa rabadaan 10 dambe lagu jiraay nabadoon beesha daarood ay leedahay tahay haddii shan agaasimo guud oo aan magacaawday ka dhigtay daarood oo madaxtooyadii dhan reer diini reer dawlad ka dhigtay agaasimihii guud ee nabad sugidda Sambalooshan ninka ii sheeg challenge-ga la oo Sambalooshan la siman aad samayso Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi oo mariixaan abtiyo macaan wadanka inta u wadas aan ku weydiiyay farmaajo miyaad marka adiga aad ahayn nabadoon beesha daarood ah matid madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed wallahi billahi tallahi farmaajo madaxweyne beerka arag goys kuma dhigi karo waxaan ku leeyahay dhigeyso dambigaaga horta ilaahay beeshu ku dhaqay ma aqaan si fiican dhigeyso farmaajo والله بالله تالله نبضون باشا دارود إلا ذا هاي متيد مدحوين أمد الصوماليين نبضون باشا دارود أو دي رقمات أيات هاي ورحاس الشيخ محمود شريف الشيخ أحمد عبد الله يوسف كورنيل كآية دكتاتر ويكح الشوجري وحاسمينيس إنا عبد الرزاق أف جدود أو بكارها اللي أجاسوه ومد وقول لا يجري أيات حصلين تي عاصمة السعودية أنت أمني جد أمك عاد إنك كنت بوصاسي جروي
بوصاصي يقروي إنا عبد الرزاق أفجدود أيا وحد كنت بوصاصي يقروي وحنا عاوضي طليها حسرين تحمر محاك سوجرا قدومي دقمة عبد العزيز أيا وحكى لك تلمة جارتنا وزيردي وقومي سنة وحاسي سهرتي فرماجو مياد مركة هين نبضون باش الدارود ما تاي مسبد وينها ومد الصوماليين تاي كسماية عادي وحكى قايب قشة شركة بلوين تدارود أيا قايب قشة وحاد شبق اسكحي جيسي شعبكي مقدشو أيا شبق اسكحي جيسي فرماجو شعبكي مقدشو كوسا بنام بحي شبق أيا وحرتي كوبي كسمايو شاه يا لعبيس كافي بلوني يا لبيش مساجدها كل دوغنيس مو حاتهاي نبضون باش دارود اي لهدهاي اما فرماجو وحاتهاي مدحوينها امد الصوماليين marka waxaan ku leeyahay batid madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Puntland ayaa dagaal ka dhacay hadda laba ciidan is dagaalaya al-shabaab iyo ciidanka Puntland is dagaalay hore ka tacsiyay maadan u tacsiyeenin afarta gabdhood ee walaalaha ee lagu dilay hotelkii xal al-shabaab ay weerareen afar wiil shan wiilo adiga reerkaaga ay reerka farmaajo weeraray hotelka wiilasha meesha weeraray waa reerkaaga oo gabdhaha laayay bar ana hadda kule wallahi waa reerkaaga ku weeraray hotelka ku weeraray isku reeratiin farmaajo oo dilay afarta gabdhood ee walaalaha ay abargidir ceerka labada gabdhood iftiin iyo iimaan oo iskuulada SYL iftiin kala dhiganay iimaan iyo andrada ifraax iyo iimaan oo 18 sano jir 20 sano jir ah reerkaaga weeraray nimanka al-shabaab ay soo direen adag kula jafiyiin yarkii boosaas isku qarxiyay daacish ka tirsanaa waa mariixaan madaxweyne marka wadanka inta u wadaa hadii agaasimayaasha guud daarood ka dhigtay agaasimayaasha guud inta hadda magacaawda hadii daarood ay yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka uu yahay nin harti ah wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh uu yahay nin harti ah wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga iyo ganacsiga uu yahay nin harti ah Jamaal abtiyo macaan inta wadanka u wadaa haddii haddana agaasimihii guud ninka abgaal ka qaaday oo ka dhigtay nin daarood ah inta madaxweyne u wada madaxweyne ummadda Soomaaliyeed tahay mise madaxweyne qabiilkaaga tahay ma nabadoon daarood tahay mise waxa tahay madaxweyne Soomaaliya oo nin nabadoon ah ma tihid markaas waxaan leedahay ma joojiye waxba yaa laga hadlin aamus idaacadii xamar oo dhan lacag baa siisay laaluush baa siisay idaacad maanta xamar ku taalo hadli karta malaha saddex bilood oo lacag baad u qaybisay marko waxaad ka wadaa biimaalka hubeenaysaa shabeelada hoose oo waxaa leedahay biimaal oo habar gadir ku duula ama Soomaaliyeed waxaa tiri biimaal waa in la sharciyeeyo ciidankooda kuwa habar gadir laga soo saaraa iyo abgaal meesha jooga iyo sheeqaasha madaxweyne marka waxaad ka shaqeynaysaa haddaad tiri habar gadir abgaal iyo sheeqaal waa in laga soo saaraa shabeelada hoose biimaalna ay aadaan waxaad ka shaqeynaysaa nabadda ummadda Soomaaliyeed ama waxaad ka shaqeynaysaa in qabiilada Soomaaliyeed ay iska horkeento maxaad ka shaqeynaysaa farmaajo ii sheeg qabiilada ugu badan ee shabeelada hoose dega waa sheeqaal habar gadir abgaal biimaal gadaal loo geey waxaad ka shaqeynaysaa nabadda ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaysaa ama danta iyo xasilinta iyo nabadda beesha daarooda ka shaqeynaysaa maxaa ka shaqeynaysaa madaxweyne aan ku weydiiyay waa su'aale miyaad adiga aad ahayn qabyaaladiiste mid kale wasaaraha ka dhigtay wasiirada aad soo magacaabatay miyaysan ahayn qabyaaladiistayaal waa qabyaaladiistayaal qurun ah dawladii Soomaaliyeena waxaad ka dhigtay dawlad reer gaar ah ay leeyihiin saxna ma ah Facebook-yadii waxaa samaysatay dad adiga ku hadlo soo celi media u bixisay lacagtii qaranka iyo lacagtii ummadda Soomaaliyeed waxaad ku bixinaysaa media ku bixinaysaa iyo propaganda sida Maxamed Siyaad Barre oo kale hadda koor qasa idin sheegaya Soomaaliyeed si fiican dhageysta farmaajo ummadda Ilaahay dhikar isqoru kurido adeerkiis waxaad dhageystay ninka la Xasan Cali Khayr oo dhahayo Soomaaliya qabiil waxa ma taro Yoweri Museveni ayaa aragnay Yoweri Museveni wuxuu weydiiyay yiri adiga rasaari farmaajo u soo doorto Soomaaliya markaasaan dheemaya rasaari ummadda Soomaaliyeed ah waa sax farmaajo ku soo doortay seediyaanu ku soo doortay ana hadda kula Khayrow farmaajo rasaaraha wiima matalan matiin seediyaanu farmaajo ku keenay هذا رول مرتان وأنا قيسان ولكن رول تلون شيء أنا سرت إيدي شيء جاي سيدي أهان أيوكو كان يوري مزفن وأجيا علبه international community جنا وإذا كهرة يعني إذا كصوماليا هل على الله صعدا ما لها دارات international community ما لها دارات international community أيك ما لها وحول بوال أجيا يوري مزفن محوك مركز حيري إن صوماليا لما تني دور سنة أي أساس كجرت عندنا حيري قيرة وحقيمد عمر حسن البشير وحي ويديه حد وايه انا حد عاود يشي سفع لي دغيست waxa idin ka qancinaya hadalka Khayro Soomaaliya labaad kaar waa ku salaamay fadlan si shar gareey dhabaantiin ilaahay dartiis sida Ismaaciil Eelaay oo kale ilaahay dartiis u shar gareey ilaahay dartiis
إلهي درت سوكو عبادة سنة قيري فرماجو سيشر قرية إلهي درت سوشر قرية هذا الكي قيرة إلهي درت سوشر قرية ما حد يفير لسان إلهي درت سوشر قرية خيرة حد إسماعيل إلهي وكو عبادة سنة دار على سوي عرب أنا قلت وحن كو عبادة سنة إلهي درتس فرماجي قيرة إلهي درت سوشر قرية إلهي درتس سوشر قرية ها إلهي درت سوشر قرية وحما يدي شيء قاعد يجست خيرة هذا الكو إلهي ذيك جاهل بحنايا خيرة وحيري صوماليا انت اصلا ويدق لا حتى اسمع الإلهي بالله درت سوشر قرية وداي دا على سوي محل قص لسان دا على سوي عرب سنة وداي أنا قلت وحن كو عبادة سنة قيرة فرماجو إلهي درت سوشر قرية فرماجو دل كل جرين مدحونا إماه سيشر قرية إلهي درت سوى رمضان إلهي درت سوى عباده عباده ها سيشر قرية وعباده أجر كل إنسان أجر أنا إذا إفتوضي والله بالله تالله إن هذا وحكة شيكتان فرماجي وحلا متكا مقع إلهي يقول أرنا أجر كل إنسان سيشر قرية إلهي درت بيري واحد بعيد شيء وحوي رنك اللي هذا قيرة سومالي لاتي دور سنة بربر وكسو كذو جرى الدولة أي كسي دولة الآن هاد عمر حسن البشير يودي يوري مسافر إنه يودي كم جوابه يقول إلهي أنا أقول قناه وصح وأنا إلهي يشرع حديث كتاب إلهي أقول قناه سومالي مش قيب طلقاه يستكملته وأنا كتاب إلهي أقول قناه وصح لكن محاكين اللباتني دور سنة سومالي إنه بربر يقولات أي كسو كذو جرت غير كم جوابه كرو بقى لباتني دور سنة سومالي إنه بربر كسو كذو جرت يقولات وحاكينتي إسآمن الآن وسميي محمد سياد بري أو فرماجة أدركيسا أنا رمت إيدي شيء جاي ورياضة إسآمن الدرة سميي باش الدارود الله باتني قرصنا ودنك حكومة يسي أيا أصاب إن سخمالي إسآمن وياي غير كما هذا ذكره والله بلا ترى أسكاد ذكرين لكن رمت ربي أجعل أنا واقع الله يا international community قال له ويديو إن الله العدارة بتاع ويديه وحائد الله يا صوماليا إن أي دقي ويسو أو صلك اللي جن واسي محمد يا مسؤول كا هدير أنت السويديو وحام مسؤول كا محمد سياد بري محمد سياد بري أي مسؤول كا أوكي محمد سياد بري هو بحي لباتري أرسل ودن كان حكومة وريا خبير كان أركتنا مدلول اللي يرهدوا وأبقى مدلول ولي يودي الله أنتم محمد سياد بري جوجي فهو فرماجة عذير هو أنتم جوجي هل سفير ما سيالا سفير عربت عيسى الإيراني جوجي جري بس ظلمي عدالة الرذا كوين أو محمد سياد برا وسميه محيطه واحد ماشي عن الدقي أو اللي سآمنه ويا كاني محمد سياد برا أو فرماجة أدركيسة أيوها خير أساس وما هذا ذكره مش يكره لكن عمر حسن على بشير يوري مسفن يسوء شو ودي وأوجين أوكي ولا جسوا قد بي دولة لا رسول يسألني ما هذا عيديد بابا وايد ما عبد القاسم يمين هذه ودنك أمها ملا وإنها برجديرة عبد الله يوسف يمين برفيري محل سكو آمنة اسمه آمن كره عبد الله يوسف يمين محوس مي عبد الله يوسف عبد الله يوسف حسين يودينا سوقي بكارو وكدر اندوري بيئا وربكارو وجنعسي علي محمد قد شبو اسكيري بكاريه لدقي نور عدا يمين يا احمد عبد السلامي نور عدا ابقال يا احمد عبد السلامي يا يمادين افكا عيد لودر عبد الله يوسف بكاري ودقي ان اللي بحسن كتابته نو كان وحو نو كان ديك سوقي هذا الهي يكون دارس waxa idin sheegay beenta ama soorunte is aamina darajirto war ma is aamini kara seel isku aaminaad اوكي سفعي دغست سيشر غري الله يوريد فيري عبد الله يوسف اصلا قبيله دارود كدشي وحو سميي ظلمي عداله درو dhalinyaradi aan la xirxiray odayaashii aan la xirxiray dadkii aan la laayay bakaariya 24 saac afiil lagu garaacay war waxaan u soo joogna fiiri hadda daarood uu Abdullahi Yusuf ilaahu naxariisana been ka sheegi ma nin daarood buu ahaa daarood runtii loo sheegay ma rabaan nin daarood buu Abdullahi Yusuf wuxuu sameeyay war waxaan u soo joogay tawfiiq hooyo laba wiil adduunka ay ku lahayd lagu dilo ciidamada Itoobiya ay ku dileen Abdullahi Yusuf ana ka dambeeyay wuxuu noo keenay in li baxsan ka taabtay dhig sokeeye laabjeex hilib cune li baxsan ka taabtay uu noo keenay Abdullahi Yusuf هذا خيره ساس ومشي كرو ما دي كرو خير كبله ما دي كرو war waxa Soomaaliya meeshan gaarsiyo heer kan gaarsiiyay waa daarood waxay sameeyeen kalsooni darro Maxamed Siyaad Bari Abdullahi Yusuf laga qaaday ma dii karo khayr nin baqaayo waay hada islaan mariixaan oo qaba khayr soo ma ogidin asalkiisana waa mariixaan oo daarood ah oo mursado sheegtay runta marabtaan runta rabbi ajcal laakiin Soomaaliya marka heer kan waxa gaarsiiyay daarood oo Abdullahi Yusuf iyo ninka la yiraahdo Maxamed Siyaad okay kadib maxaa la soo doortay Sheekh Shariif si caadi wadanku maamulay waxa la cunay dhaqaalaha dekada xamar waxa la cunay ishaq hantida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe la cunay inta Sheekh Shariif joogo in abgaala ama dulooda oo hawiya wuu baxay xashan maxamuud la doortay waxa la cunay isla dekada muqdisho ee laboorka muqdisho la cunay mid garow waxba laga ma keenin
بورمي اسكراف برعا اسكراف بورمي ارجيسي اسكراف وابا قوناي دهين لكن دقد بوصاص waxba laga ma keeni jirin midda kismaayeen waxba laga ma keeni waligeed intuu xashaq maxamuud joogay wax laga keenay ma jirto wala fiirsanay harti oo Puntland daga 500 bixinay dhaheen xashaq maxamuud intuu joogay waxay dhaayeen hawiye waa qabyaaladiiste xasan sheekh waa qabyaaladiiste sheekh shariif waa qabyaaladiiste ilaahay nabi maxamed untaan ku dhaartay inaysan xasan iyo sheekh shariif aysan qabyaaladiiste ahayn qabiil koode u darnaayeen xasanna wuxuu u darnaa hawiye iyo mudloodku ka dhashay abgal sheekh shariifna wuxuu u darnaa hawiye iyo mudlood iyo abgalku u dhashay sheekh shariif abaroonaayo qabiil liila shaqal degmo ka sii xamar walahi baydii sheegeen xashaq inuu diido badamacayba hadda qabyaaladiista ma ahayn labada nin waxay ka ordi jireen qabiilka ka ordi jireen hadda fiiriya in dadka ay kala nasabsiina idin sheegaya xashaq maxamuud wuxuu ku haystay mala daarood sheekh shariifna wuxuu daarood ku haystay oo lacag ama hanti ama mansaba ma jirin madaxweyne ummadda Soomaaliyeed loo doortay waxa loo doortay wuxuu ka rabay ma jirin hanti gaar oo ay sii jireen ma jirin ayadoo saas ay tahay ayaa xamar ayaa xildhibaanadooda lacag laga sii jiray xamar ayaa lacag laga sii jiray okay farmaajo yimid hadda farmaajo maxaan ku aaminaa ma ii sheegi kartaan fiiri waxa la gaalka dil gartiisna sii war aniga idil bal garci adi farmaajo maxaan ku aamini karnaa wasiiradii uu magacaabay ra'iisul wasaarihi uu soo magacaabay seedinimo ku soo magacaabay macnaha qayro wuxuu qabaa iga dhaaf gabadha mursada farmaajo uu qabaa iga dhaaf qayro uu qabaa gabar mariixaan uu qabaa wasiiru magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wuxuu sii daarood wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga wuxuu sii daarood wasiirka dastuurka wuxuu sii daarood ka soo tag abaanduuli ciidanka nin habar giro sacad ka qaaday nin mariixaan uu dhiibay shan agaasimo guud oo wasaaradu magacaabo daarood uu dhiibay madaxtooyada wixii abgaal iyo shiiqaal iyo habar giro iyo dubli iyo wixii jooga gaal jacayl baad hadda waa laga saaray degada muqdisho wuxuu sameeyay laba nin oo saddex nin oo harti ayuu si fiiriya cadaalad darada intii sheegaya gaal jacayl hal xubin ka siiyay waligood lahayn gaal jacayl hal xubin ka siiyay murusade saddex xubin uu siiyay murusade saddex xubinood uu siiyay xawaadle laba uu siiyay okay mudulad laba uu siiyay habar gidir iyo shiiqaal iyo jinni asheegin reer xasan uu siiyay harti oo Puntland dago daarood ah saddex xubnood uu siiyay fiiriya murusade iyo harti degada xamar u sameeyeen yihiin mudulad way ka hoosayaan laba xubnood ay leeyihiin habar gidir iyo shiiqaal iyo warkooda asheegin hadda way maxal isku aamina in aad riyaalo gacliy aaminaada Soomaaliya is aamini karto oo hadda qabiilkan farmaajo ay keeni karaan maxay tahay wuxuu meel ku soo qortay nabad iyo nolol waan bedelnay si fiican dhageystaa wiye in Soomaalida kale farmaajo ka soo horjeeda dir iyo degil imrif iyo baasha la hadlaya hadii daarad ay yiraahdeen nabad iyo nolol muqdisho wuxuu farmaajo ka dhigay naxdin iyo nabar dawladda farmaajo waxa la yiraahdaa naxdin iyo nabar war dawladnimada Soomaaliya la sheego aniga hadda ay idin hadlayo wallahi billahi taala waxba kuma leeyahay hal wasiir dawlad xun alaysi hal agaasimo mali hal taliye mali hal degmo mali waan ka oriyada wax meedii sheegaa xamar ana xamar ku dhasho aabay ku dhasho oo inay ku dhalatay iyo waxa u siman nin harti ah oo bajarteena oo Ali Suleymaan oo Puntland laga soo ceersaday waa u siman xamar degmo Cabdi Ilaahu haystaa cadaalada midaasa duduble oo aad ogtiin hantida iyo dhaqaalaha koonfurta Soomaaliya in ay ka leeyihiin iyo harti Ali Suleymaan majarteen way u sameeyeen xamar hal degmo kala maamulaan hadda cadaalada aan noo sheegaysaan uurgaalow habar ceen uurgaale iyo mariixaan reer diin reer dalalow cadaalada noo sheegaysaan cadaaladaasa uurgaal la hadlaya mursoodan lama hadlaya aniga uurgaali waxa la hadlaya reer dalal la hadlaya oo reer diin kala shay reer dalal cadaalada aan noo sheegaysaan wiilka habar gidin iyo wiilka duduble iyo wiilka shiiqaal inay u sibnaadaan muqdisho iyo wiilka ma jarteen cadaalada taas ma cadaalada cadaalad ma ay sheega idinka idin wadi ma cadaalada lama rabo waqti wax la qariyo lama rabo runta la rabaa cadaalada aad sheegaysaan ma cadaalad noocaas ah macnaha ina fiiri duduble habar gidir shiiqaal murusade abgaal gaal jacel baal cadde waliya gaal jacel iyo baal cadde waxa xamar ka xigaa la yiri wiil harti oo ka yimid majarteena oo ka yimid Puntland iyo wiil bimaala ay ka xiga gaal jacel iyo baal cadde iyo ujeejeen hal degmo malaha jajaale iska dhaafba baal cadde iska dhaaf gaal jacel iska dhaaf waxa ka xiga lagu yiri gaal jacel oo hawiye ah oo baal cadde hawiye ah oo jajaalo hawiye ah oo ujeejeen hawiye ah ya waxa xamar ka xiga majarteen iyo waxa ka xiga bimaal
cadaaladda farmaajo ma taasa markaasuu qayre wuxuu ku leeyahay Yoweri Museveni iyo Uhuru Kenyatta waxay weydiiyeen maxaa Yoweri Museveni iyo Umar Xasan al-Bashir madaxweynaha Suudaan waxay weydiiyeen maxaa Soomaaliya loo heshiilaayay war waxaa loo heshiilaayay cadaalad darro Maxamed Siyaad Barre uu sameeyay oo Cabdullaahi uu sameeyay oo farmaajo maanta uu sameeyay ay dadka isku aamin laayihiin waa is aamin laayahay qabiil kale uu aamin laayahay hawiye fiiriya hawiye waa diyaar wax walba diyaar leeyihiin dekada xamar in la cuno ee boorka la cuno waa diyaar laakiin farmaajo ogaadeenka kismaayo haysta waryaha gaal jecel iyo shiiqaal iyo nimanka la yiraahdo magaciis baajuun iyo oromale waa laga soo cirsaday kismaayo ogaadeena ka soo cirsaday dekada kismaayo iyo madda boosaaso farmaajo wax uu ka keeni laayahay maxaa marka la isku aaminaa dawladnimada see la isku aaminaa macnaha see la isku aaminaa mii sheegi kartaan sanbalosha ku saare sanbalosha xawaallah oo nabad sugida loo dhiibay wax buula laga dhigay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi oo madaxii sirdoonka al-Shabaab ahaa